wiilka duurjoogta ah ee subaca la dirsay haddii aad eegto indhihiisa waxay ku sheegayaan wax badan. waa cunug ay hooyadiis u aragto inuu yahay hibo xagga eebbaweyne kaga timaaday, halka dadkuna u arkaan inuu waji xun yahay. waxa uu door bidaa inuu waqtigiisa ku qaato dhankaas yakaynta inta badan, sababtuna waa ka fogaanshaha bulshada oo ku haya tacadiyo ka dhan ah. waxa uu ordaa ku dhowaad 30 kiiloomitir maalintii si uu uga fogaado jabaqda iyo aragga dadka ay deriska yihiin ee ku cunsuriyeeya abuurta uu Ilaahay ku kalladaystay. haddaba waa maxay qisada wiilkan yar ee u nool sida duurjoogta? waa Zanziman Idi, waa wiil yar oo ku nool waddanka Rwanda. isaga iyo hooyadiis waa 20 sano jir. wax ma baran sabab ka dhan ah cunsuriyadda ay ku hayaan ardayda la klaaska ah. muuqiisa eebbaweyne ku galladaystay awgeed, hooyadiis waxay u aragtaa inuu yahay hibo iyo hadiyad Ilaahay siiyey. kadib habeenno badan oo Ilaahay ka bariday inuu bedel khayr qaba siiyo uguna bedelo shanteedii wiil ee weysay. madaxiisa oo aan korin ayaa sababay inay ku adkaato waxbarashada iyo la hadalka dadka kale, balse hooyadiis waa qofka kaliya ee uu fahmo, kalsooni buuxdana uu dareemo marka uu la joogo. waxa caado u noqotay inuu si maalinle ah u ordo ku dhowaad 30 kiiloomitir, taasoo ka dhigan 60 kiiloomitir si socod iyo soo noqosho, maadaama uu ka fogaanayo saxmadda iyo buuqa carruurta xaafadda iyaga oo ka maadaysanaya, taasoo ka dhigan inuusan soo laaban haddii aysan hooyadiis soo celin habeennimadii. noloshiisa duurjoognimo waxay bartay wiilkan yar inuu cuno caleenta dhirta, sidoo kalena la qabsado fuulista dhirta si sahlan. waxayna dadka deegaanka u bixiyeen Mowgli, iyagoo ka tusaale qaadanaya Mowgligii wiilkii duurjoogta ahaa, iyagoo ka xiganaya filimkii kartoonka ahaa wiilka yar ee nolosha duurjoogta la qabsaday. waxayna arrintan u sababtay in maalinba maalinta ka dambaysa uu ka cararo dadka, uuna dareensan yahay in dadku ka maadaysanayaan muuqaalkiisa cajiibka ah. waxaase ka sii daran dareenka iyo walwalka ay dadka deegaanku ku hayaan hooyada wiilkan yar ee dhibanaha ah. waxayse ilaaween inuu yahay aadame la mid ah, Ilaahayna siiyey dareenka ay leeyihiin mid la mid ah. faaladaada hoos ku soo qor sida aad u aragto Zanzi, masana la wadaagi kartaa qisatan wiilkan oo kale ah oo dadku ku saameeyeen noloshooda. insha Allah waxaan go'aansaday ayaamii ugu dambeeyay waxaan waday qorshe ah inaan kanaalka isbedel weyn ku sameeyo dhanka muuqaalada iyo mowduucan ka hadli doono insha Allah. waxaan rabaa insha Allah inaan qisooyin soo aruuriyo cajiib ah oo haddii macquul tahay. marka insha Allah waxaan rabaa bal falcelintiina iyo qaabka u aragtaan qisooyinka iyo mowduucyo asleediin waa idin anfacayaan waan la wadaagi karaan. fadlan xagga commentiga hoose noogu soo qora, sidoo kalena ha ilaawina inaad like, subscribe, sidoo kalena la wadaagtaan asxaabtiina kanaalka faafitaan. runtii waxay ii noqonaysaa dhiirigelin si aan muuqaalo fiican oo tayo badan oo aan u soo geliyo. waxayna ii noqonaysaa dhiirigelin. aad iyo aad baa u mahadsantiin.